الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتيدا أحبابتيدا أمضيدا ضدكيغا إهلكيغا دمان وإذنكم السلام سلامة إسلامك وقت بدن ومسو قلين لبا قضب أيان أصو قلي adduunka caalamka maanta in badan wali waa laga sooman yahay waxaan ku jirnaa dadka weli sooman gabaldhiciina xoogaa yar baa nooga dhiman qoraxdu inay dhacdo aanu afurno insha allahu tacaala meelo kalena waa laga afuray oo waa laga ciiday oo soomaalida ay ka mid tahay marka labada qodob waxa weeye mid waa hambalyo waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda kuwii maanta ciiday iyo kuwa berri ciidi doonaba ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaadka ramadaan inuu khayr nooga dhigo ciiddana ciid barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa marka ay ciidda tukadaan la oranayo kuluu washrabuu hanii'an sidii aada usoo soonteen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aada ugu hoggaansanteen amarkii udin amray faman shahida minkum shahra falyasumhu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa jaa-isadooda wanaagsan qaata inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo ilaahayna soonkii naga aqbalo ciiddana ciid mubaarak ayaan leenahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala barakaysan camalkiisanna allah naga aqbalo camalka wanaagsan ilaahayna subxaanahu wa tacaala dadka soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ah oo dhan ba ciiddeeda khayr iyo barako iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo cudurrada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga qaaday adduunkana ka qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu gaarsiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala midaan ku faraxno oo maalinta qiyaamana ku faraxno adduun iyo aakhiraba ciiddan allah nooga dhigo taasu waa hambalyada ciidda waa ciid mubaarak wa kullu caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa khayr allah nagu gaarsiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala soonkana marar badan iyo sanado badan allah noo soo celiyo oo annagoo caafimaad qabna oo barwaaqo ku jirna ilaahay subxaana wa tacaala hana tuso taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waa duco weli anigu waa soomanahay iyo ummad kaloo badan oo muslin ah oo wadamada islaamka jirta marka soonka maalintii noogu dambeysay wey maalintii noogu dambeysay nebiguna alayh الsalatu wasalaam wuxuu yihi qofka muslimkaa ducuu leeyahay maalin walba laga ajiibo culimadii islaamka ee wanaagsanaydna waxaa laga sheegay inay yidhaahdaan hal duco oo la aqbalayo haddaan leeyahay hal duco oo layga aqbalayo keliya jaanis haddaan u haysan lahaa hal shay baan ku ducayn lahaa shaygaasu waxa weeye in xukunka ilaahay subxaana wa tacala dadka muslimiinta iyo xaakimka u hagaajiyo marka anigu maanta qasadkaygana waxa weeye ducadaas hal duco ayaan maanta ummadayda u leeyahay maaha caruur reer wax badan aynu ducaynay oo inaguna ku ducaysanay hamigu waa ummadda anigana hamigu waxa weeye maanta ducada aan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala aan ula qasdinayo hal duco waaye maanta taasoo ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan soomaaliyeed ee dhibku ku raagay ee burburku ku raagay ee dhibaato ku raagtay yacni adeeg la-aan dhibaato kala qaybsanaan qabyaalad burbur dowladnimo la-aan ama dowladnimo daciifa oo tabar daran oo taag daran ay ku soo raagtay baan ilaahay subxaana wa tacaala u baryaya aamiin ii dhaha hal shay baano ku ducaysanay hal shay oo waxaasoo dhan isugu imanayaan aan sheegayo ya waxaas aan sheegayo oo dhan oo ummadda u baahan tahay maxay culimmadu u lahaayeen hal duco haddaan leeyahay hal baan ka dhigan lahaa aniguna halkaas aan ka dhiganaya waxa weeye ummaddaas inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo saaro qaa'id
ilaahay u soo saaro hogaamiye ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo saaro dhibka sababtiisa kaga baxdo ku hogaamiya kitaabka ilaahay yaqaana oo diintooda ku hogaamiya kitaabka ilaahay qur'aanka ah madaxa u saaran yahay yaqaana aqoon u leh oo akhriya oo ku hogaamiya oo si nabigiisa calayhi salatu wasalaam yaqaan oo adduunka iyo waxa ka socda yaqaan oo masakiinkooda u naxariista oo geesiya oo deeqsiya oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaa'id ama hogaamiye ummad ka saara ka samata bixiya oo ilaahay uu ku badbaadiyo ummad dhan waxaan ogaaday inuu ilaahay subxana wa tacaala hal qof sabab uga dhigo ilaahay subxana wa tacala uu ku badbaadiyo wax badanna waan sheegay wax badanna waan ka hadlay waxaan u malaynayaa goortaan arrintaas ku baraarugay ma dhoweyno 1981 baan leadership wax ka akhriyay markii ugu horreysay waxa weeye muddo hadda yacni waxaan filayaa 40 sano laga joogo ku dhow 40 sano ku dhow intaas markii aan ummadaha eegay oo kitaabka qur'aanka eegay oo diinta eegay oo wax ka bartay oo wax ka baaray waxaan ogaaday ummadaha wax kasta oo la sheego waxay isugu soo ururtaa hal shay bay isugu soo ururtaa hoggaan bay isugu soo ururtaa hoggaan bay isugu soo ururtaa ilaahay subxaana wa tacaala hal qof buu ummad dhan ilaahay subxaana wa tacaala ku badbaadiyaa oo leh arrimahaas aan sheegay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa ummadda soomaaliyeed dhibka ku raagay iyo kala qaybsanaanta ku raagtay iyo dowlad la-aanta ku raagtay iyo dacfiga ku raagay adduunka ay ka hareen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu usoo saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala maanta ducada keliya aan ka leeyahay waa midaas wey ilaahay baan ka baryayaa inuu ilaahay u ajiibo nabigeena alayh slat slam hamigiisu wuxuu ahaa ummadiis ummatii 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 nafsii nafsii ma oran jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa oo aan maanta ergo ugu ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ummaddaas siiyo hoggaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa yaqaan oo ku hogaamiya kitaabka qur'aankaa yaqaan oo isagu macallin ugu ah oo sunnadii nebiga calayhi salatu wasalaam macallin ugu ah oo maxastooda ururiya oo cadaalad ku dhaqa oo isu ururiya oo xoog leh oo haybad leh oo quwad leh ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu siiyo oo u soo saaro baana ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta ka baryayaa ducadii iyo hambalyadii ciidda ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadkan sanadkiisa sidaan ka wanaagsan oo ka khayr badan oo ka barwaaqo badan oo ka farxad badan oo niyadda ummadda soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhib kaga saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga baryaynaa kelimaddaas ayaan jeclahay asxaabteena wadaago mar labaad intiina ciiday iyo inta berri ciidi doontaba oo annagaan ku jirno waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay hanaga aqbalo camalka san ilaahay subxaana wa tacaala dembigeenna ha dhaafo sanadkan sanadkiisana sidaan si ka khayr badan oo ka qurux badan ilaahay subxaana wa tacaala hana tuso oo niyadeyna ay ku jirto oo ku farxdo baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu